وهذه سلام أصحابي وحال كان كسي ودونا تحنين نو سعودو ميغيسو آدريمي فريكين فيرتال تحنا waxaa samay shan qayb hore fadlan hadii aad soo daan channel dib ugu laabi soo daawo part 6 inta guda galin waxaan ku xasuusinaya inaad channel subscribe noo soo saartid oo aad muuqaalka like noo saartid part 6 waxay ka bilaabanaysaa meesha ku dhamaatay part 5 markay shin habsi kadib muun waxa isku tooriya daladii uu jeclaa dhinaca kale Lily way ilmeenays waxa uu soo laabanaya wiilkeeda muun wuxuu ku dhahay waxa u baahanaa inaan maqlo qisadaada ilaa dhamaadkeeda inaa iiga sheekaysid si aan u dareemo raaxo oo niyadda iigu degto muun markuu soo dhameeyo sheekada hooyadiisa waxa banaan ku sugaysa shin wuxuuna ka codsanaya inay mar labaad ay habsiiso shin mar labaad ay habsiinaysaa wuxuuna ku dhahayaa waa mahadsantahay Shiin kadib waxay imaanayaan hoteelka asagana wuxuu u sheegayaa Shiin inuu farxad dareemayo maanta si farxad leh u cabi doono cabitaanka inaa hooyada inay iska cafin doono maanta kadib markay hooyada ka tagtay aabay wuxuu isku bedelay qof xun Shiin waxa ku dhahaysaa waxaan waxa u sameeyay sababtoo ah hooyada waxay ahayd qof fiican waanu adkeysan waayay iyadoo ku ag joogto dad aysan ku fiirin karin oo iska qarinayso taas ayaa ka xumaaday kadib muun waxa ku dhahayaa ilaa hadda adoo waxaan aragtay wali riyadaada ma ku taagantaa inaa rumaysid Shiin waxa ku dhahaysaa may wali ma isbedelin aniga ma ka yaraa aabayga farxad ma wasi jirin anigana uma sheegin waxaan jeclaa oo riyadeeda ahayd muun waxa weydiinaya Shiin maxay adriilada ma ka yareed Shiin waxa uu sheegaysaa in riyadeeda ay ahayd inay sabir sir gacmeedka oo noqoto artista uga caansan Korea kadib muun wuxuu keenayaa gurigeeda kadib ayada waxay ku dhahaysaa hadda waa iska bixi kartaa aniga galay guriga isagana waxa ku dhahayaa marka guriga kugu hubsad leh baxa markay dabaq koowaad fuush waxay ku dhahaysaa iska baxay ilaa had maxaa la taagan tahay muun waxa ku dhahayaa waxa u baahanaa inaa ku arag saddex mar sidaan camal had ii soo fiirinaysid Shiin waxa ku dhahaysaa caabi kaliya leewaay biri waa is arkeena iska bax biri kaliya waxa naga xigto inaa caawa seexda leh kadib muun ilaa ay dabaqa saddexaad ka fuulayso asaga uu fiirsanayay Shiin kadib markii subaxdii la gaarsiinay muun hal mar ay wada imaadeen hoteelka ayagoo wada taagan waxa meesha soo maray gaari u saaran yahay cunug yariis ah wuxuu ku soo shubayaa biyo si uu dharka u haleeyo laakiin muun ayaa daladiisa u dhigayo Shiin ayaa wuxuu ku dhahaysaa daladan waxa uu dhit ma yaro hadda maanta way badbaadisay kadib aniga isii ayaa dhahaysaa adiga la'aanteed waa noolaan ka tahay kadib muun oo siinaya dalada wuxuuna u sheegay inay si fiican uga ilaaliso kadib markii habeenkii la gaar waxa arkaynaa muun oo saad u faraxsan wuxuuna wada u waxay faraantay si uu ugu soo bandhigto Shiin inuu guursado kadib waxa kor imaanaysa daana waxna ku dhahaysaa maxaa waay waxaan intees u wadaa kadib waxa ku wada hadlayaan gaariga dhexdiisa muun wuxuu daan u sheegay inuu Shiin jecel yahay daana waxa ku dhahaysaa jeclaa ma jeclaanin lagama yaabo inaad sidaan fudud ay iga tagtid waxa igu balan ah inaa iyadoo nool aan nolosh ku aaso kabaran hadaan dilo iyadoo aan hal cadeen aan reebin taasna waan awoodaa muun waxa ku dhahayaa taas ma awoodid wuxuuna soo xasuusanayaa markii ay Shiin la afduubanayay wuxuu isdhaa tan wax walba ku suurtooda iyadoo seebix rabto ayuu celinayaa wuxuu ku dhahayaa waxa rabto ku sameeynaya kaliya Shiin leh ka fogaaw markii subaxdii la gaar waxa isla imaanaya hoteelka muun iyo daana muun wuxuu yaan ku dhahayaa waa inaa baajisa xaflada lagu dhigay hoteelka isbuucan waxaan u baahanahay inaa ku dhigto arooskeena xafladiisa yaan wuxuu ku dhahayaa laakiin macquul ma ahan dad ayaa mar hore kireysteen daana waxa ku dhahaysaa arooskaas qof kale ma ahan waa anigii muun arooskeena waxa u baahanahay inaa soo dedejino arooskeena marabna ilaa waqti dheer inaa kala sii maqnaano kadib waxay gacanta ka qabsanaysaa muun waxayna Shiin ku dhahaysaa iyada oo diyaarinaysa arooskeena meesha lagu qabanayo ayada loo xil saar qurxintiisa Shiin waxay la yaabanay wixii bedelay muun oo sidaan iskugu bedelay hal mar kadib waxa imaanaya beegdo asagana wuxuu gacanta ka qabsanayaa Shiin wuxuuna ku dhahayaa noo ogolaada inaan wada hadalno anigii Shiin asoo gacanta ka haysta ayuu meesha ka wadanaya kadib beegdo wuxuu ku dhahayaa Shiin meeshan qalbigaaga jibinaya inay sii joogtid ma ahan wuxuuna u soo bixinayaa ticket Jarmalka ah iskaaga soo tag meeshan anigii soo raac waxa leeyahay casuum bandhig lagu qabanayo Berlin waxaan soo joogi doonaa hal bil madax ayaa kugu soo dagayo adigna bilow xirfada aad jecel ee wax sabrida Shiin waxa ku dhahaysaa beegdo maxaa waxaan dhan iigu sameynaysaa adiga asagana wuxuu ku dhahayaa aniga kaliya waxaan sameeyay wuxuu qalbiga ii sheegay waan ku sugi doonaa ilaa aad iiga timaadid muuni daan wax isku diyaarinay arooskooda ayadana wax isku fiirinaysa toobka arooska daana markay soo gashato toobka arooska waxay dareemaysaa in muun uusan inta jooginba ay niyadiisa meel kale ay jirto waxayna kala diraysaa labada shaqaale markay baxan waxay jibinaysaa weelka ubaxa si uu miirku ugu soo laabto muun waxay ku dhahaysaa ma ka bixi rabtaa heshiiskii aan xal wada galnay si aad u ilaaliso Shiin asagana wuxuu ku dhahayaa aniga waxa halkan u joogaa balantii aan ka qaada xalay maxaa kaloo iga rabtay inaan kuu sameeyo daana waxay ku dhahaysaa waxa lagaaga baahnaa inaa ila doorto toobka arooska sida dadka kale camal oo isguursanayaan muun wuxuu daana ku dhahayaa adig kaliya waxa kuu dhiman inay dhahdid sida bombal bater la geliya camal iigu sacabi daana waxay bilaabaysaa inay iswaash oo qayliso iska jarto wixii ay wadatay kadib muun uu soo kacaya wuxuuna u sheegay inay waalida iska joojiso wuxuuna wajigeeda ka tusayaa miyaaradda wuxuuna ku dhahayaa daana aad quruxley ayaa tahay sidoo wajigaaga u qurxan yahay waa inuu u qurxnaadaa qalbigaaga kadib daana waxay imaanaysaa gurigana waxaa jooga aabaheeda agtiisa ayay fadhiisanaysaa waxayna ku dhahaysaa aabe adiga ma ku faraxsanta inaad guursado aabaheed wuxuu ugu jawaabayaa haa gabadheed maxaa ugu faraxsanaan waaye aroosku wuu fiican yahay waan raaxada adduunka ayada hal mar ayay garifiis ku seexanaysaa waxayna ku dhahaysaa aniga muun saxdaaf ayaan u jeclaa laakiin maxaa u waayay qof saas ii jeclaado aniga noloshu way igu adkays maxaasaan leeyu gala oo aan sameeyay ooyina ayaa hal mar af furanaysa daana kadib markii subaxdii la gaaro waxaa arkaynaa shaqaalaha hoteelka oo banaanka taagan hoteelkan uu xirnaa Shiin ayaa imaanaysa waxayna weydiinaysaa wixii dhacay ayagana wuxuu sheegay in albaabkii laasaak inuu xiran yahay yang wuxuu telefoonka la hadlayay muun wuxuuna u sheegay kulligood in la fasaxay oo maalmo ay geli doonaan fasax kulligood way iska baxayaan laakiin yang wuxuu sheegay Shiin inay wax qaldan yihiin ee u tag muun ay soo ogaa wixii dhacay hadii wax laga qaban karo Shiin waxay imaanaysaa guriga muun markuu albaabka furo waxay arkaysaa muun in wajigiisa uu leeyahay dhaawacyo Shiin waxay weydiinaysaa wax ku dhacay asagana wuxuu ku dhahayaa inta maxaa ku keenay oo iga soo doontay subaxan Shiin waxay ku dhahaysaa maxaa waay fasaxan degdeg ah iyadoo la iska fasaxay shaqaalaha ayagoo loo sheegin muun asaga warkaas kuma wada socdaba Shiin oo la hadlays ayuu ka dhaqaaqayaa ayadana waxay ku dhahaysaa adiga ma xanuunsan tahay maanta muun wuxuu sheegay inuu daalan yahay maanta haddii aadan wax muhiim ah iga hadlaynin waa iska bixi kartaa Shiin wuxuu sheegaysaa in beegdo inuu ku dhahay kasoo tag hoteelka shaqadiisa markaas kadib waxa isku raaci doonaa Berlin muun wuxuu ku dhahayaa Shiin maxaa sugaysaa marka ma israacdiin Shiin way la yaabtay ficilcilintiisa adiga run ma ka tahay in aan raac maarta waxayna ku dhahaysaa bas waay aniga adiga mar kale ma wada
kulmi doono intayna kala dhamaatay ayadoo sii bixi rabta ayuu gacanta ka qabanaya kadib wuxuu ku dhahayaa waxaan rabaa inaan wax kuu sheego intaadan bixin ka hor indhaha isku qabo kadib ayadoo rabin ayuu hal mar shuminaya ayadoo yaaban ayay iska fujinaysaa waxayna ku dhufanaysaa dharbaxsho waxayna ku dhahaysaa adiga isqajaan ayaa tahay wayna ka tegaysaa markay banaanka timaad waxay bilaabaysaa inay ilmayso waxayna dhahaysaa meen sidaan qaabka daran inay ila dhaqantid muun asagoo ku xumaa wixii uu ku sameeyeen wuxuuna soo xasuusanaya xalay wixii dhacay muun asagoo iska fadhiya hoteelka oo cabitaan cabayo waxa uu imaanaya daana aabaheeda oo wata akhyaar kale ayagoo wataan budad daana aabaheeda wuxuu ku amrayaa ciidankiis inay jibiyaan wix hoteelka yaal oo dhan waxayna bilaabayaan inay budo ka dhigaan wax walba ay arkaan daana aabaheeda wuxuu soo qabanayaa muun wuxuuna ku dhahayaa sidee u awood inaad gabadheed ka oysiisid wuxuu ku bilaabayaa feer hadda mar labaad ayuu soo kicinaya wuxuu sheegaya inuu nasiib badan yahay haddii aysan daana ku jeclaan lahayn waxaan wax ka xun ay kugu samayn lahaa kadib dhulka ayuu ku tuurayaa kadib markay ka tagaan waxa uu imaanaya aabihiisa wuxuuna ku dhahayaa aniga hore kuguma sheegin miya jecelaha raadin soo kuguma dhihin muun wuxuu ku dhahayaa aniga maxaa kaloo samayn lahaa xataa hooyadii aan jeclaa waa ii soo laabatay waana faraxsanahay maanta aabihiis wuxuu ku dhahaa hooyada maa kulanteen maxaa kaloo kuu dhiman yaa marka lagu qiyaamin muun aabihiis wuxuu ku dhahayaa aabas intaa u ka ekeeno aniga marka hore waxa uu maleey jiray gabdhaa inay sida dhagax oo kale ma awood inaan noloshii hor ku noolaado aniga hadda qof ayaan jeclahay aabihiis wuxuu ku dhahayaa okay marka haddii arrinta sidaas tahay hadda kadib aynu kala dhamaatay aniga iyo adiga wax xiriir nagma dhexeeyo hoteelkan iska xir hooyadaana aad adigoo haysan wax business oo shiid ah haddii ay ku jeclaan doonto hadda wax walba way dhamaadeen adduunka hadda qof ku jecel ma lahan ee macsalaamo duqa waa iska sii baxaya muun sidaas darteed ay iskaga foyesheen ayadana soo dhib u gaarin kadib maalintii xigtay shiin waxaa loo geenayaa warqad xiran markii ay kala furtay waxay ku arkaysaa inay tahay sabir ay sabirtay markay yareed waxay soo xasuusanaysaa markii iyaday muun markay wada joogeen habeenkii gurigoodii hore muun wuxuu ku arkay sabirka kadib markaas wuxuu geeyey shaybaarka si sabirka looga saaro wasaqda lagana dhiga mid nadiif ah sabirka waxaa la socday warqad uu soo qoray muun wuxuu warqad ugu soo qoray muun aniga markii ugu horreysay aan ku dhahaysan dareel lama tihid run ayaa kuu sheegay sababtoo ah aniga waxaan ku arkay qof dagaalyahan ah oo raba inuu noloshiisa bedelo oo nolosha dagaal kula jiro qofka dagaalyahanka oo geesiga wax walba uu ka rabo nolosha wuu samaysan karaa meeshuu rabo wuu aadi karaa asigoo cabsanaynin adiga waxaa tahay geesi sida anigu malaynaa waa kasii geesisan tahay waxaa tahay qofkii ugu fiicnaa aan la kulmo shiina markay warqadda dhammaysato waxaa kasoo daadanayso ilin fara badan kadib waxay aadaysaa suuliga waxayna iska soo dhaqaysaa wejiga markay kusoo laabato qolka waxaa soo wacayaan wuxuuna sheegay in hoteelka la xiray muuna laga soo buriyo guriga kadib markuu diiday arooska daana muun aabihiis wax walba uu siiyo ka cishhtay hadda ninkaas wax ma haysta faqiir ayuu noqday shiina markay warkaas maqashay la yaabtay kadib shiin waxay u tegaysaa beegdo waxayna u celinaysaa tikidkiisa waxayna ku dhahaysaa beegdo adiga qof fiican ayaa tahay waadan mahadsantaha kuuma raaci kara baarliin beegdo waxuu shiin ku dhahaya maxaa dhac ii sheeg shiin waxay ku dhahaysaa inaysan raaci karin qof ayada dareen jecel u haayo beegdo waxuu ku dhahayaa shiin laakiin aniga kaama dalban inaad si degdeg ah ii jeclaatid soo bax isoo raac ana wada guulaysane waan ku caawin doonaa si aa u noqoto waxaa jeceshahay shiin waxay ku dhahaysaa aniga qalbigay ayaa sidaas ii sheegay mana ku raaci kari I am sorry please waxaan ku rajeynaya inaad ku raaxaysatid safarkaada baarliin kadib markii subaxdii gaarshiin way soo baxaysaa ayadoo wadada iska marayso waxay isdhahaysaa hadda muun wuxuu ku sugan yahay kadib waxay sabarinaysaa muun oo meel koomba dhigta oo tugsanayo oo markii ay baahi qabato oo tagayo ma dukaan lagu iibiyo rootiga kadibna uu awoodi waa inuu gato hal rooti kadib markaas uu xadayo hal rooti oo asana hal mar la bursanayo waxayna isdhahaysaa maya maya taas ma dhici karto ninkaas wax walba hadduu dhaco lacag ma waaynayo kadib socodkeeda ay iska sii wadanaysaa siday u socoto waxay is arkaysaa iyadoo hortaagan hoteelka markay gudaha soo gasho waxay arkaysaa hoteelka alaabtiisa oo dhan oo jajaban waxayna isdhahaysaa maxaa waay meesha maroodi maa ku cilmiinteeyey ayadoo meelaha fiirinaysa waxay arkaysaa qof meesha ku dhakan shiin ayadana cabsi ayaa wadnaha go'i rabay waxayna ku aadinaysaa dalada markay usoo dhawaato hal mar ayay duudka ugu dhufanaysaa dalada kadib waxay arkaysaa qofkay ku dhufatay inuu ahaa muun kadib shiin waxay weydiinaysaa muun maxaa inta ka samaynaysaa kadib waxay daaraysaa nalka waxayna ku dhahaysaa maxaa ugu tagta hoteelkaada waaba jecleed mise anigoo raalli ka ayaa ishim sidaas darteed ma iskaga xirta hoteelka kadib waxay usoo taagaysaa gacanteeda waxayna kicinaysaa dhulka shiin waxay ku dhahaysaa muun adiga hadda maamulahayga ma tihid wax walba waan ku sheegan karaa aniga hadda waan ku jeclahay isagana wuxuu ku dhahay hadda haddaa i jeceshahay aniga wax ma haysta faqiir ayaan ahay shiin waxay ku dhahaysaa muun hadda labadeena faqiiriin ayaan ahay noloshan hoos waan kasoo bilaabi karnaa muun wuxuu shiin ku dhahayaa nolosha keliya inaysan een lacag waxaa loo baahan yahay labada qof inay qalbi iska dareemi karaan kadib wuu shuminayaa ayadana waxay ku dhahaysaa sanama ii jecleed muun wuxuu u sheegayaa shiin inuu wax walba u waayey uusan hal mar ka walwalin laakiin adiga jecelkaada waa ku dhiman karaa le kadib wuxuu usoo bixinayaa faraantiga arooska farta ayuu gelinayaa kadib waxay keenaysaa gurigeeda waxayna u sheegaysaa akhyaarta kale in muun uu caawinta seexan doono muun wuxuu ciddeeda u sheegaya inuu yahay shiin jecelkeeda cusub kadib markay eedada maqasho waxay ka wadaysaa meesha labadeeda gabdhood si uu muun u seexdo fadhiga shiin waxay dhulka fidinaysaa buusta si u seexdo muun markay u fidiso waxay ku dhahaysaa adiga keliga inta seexo aniga qolkayga ayaan aadayaa asaga gacanta ayuu ka qabanaya waxaanu ku dhahayaa inta ila seexaawa aniga keligay ma seexan kari inta shiin way ka ogolaanaysaa waxayna iskuujinayaan bustaha subaxdii markii la gaar waxaa kasoo horkacayaan eedadii iyo khiyaarta kale shiin iyo muun ayagoo xaalkood iska yaa bariga dhexe waxaa haraantu ku kicinaysa habaa muun markuu arko ayuu kicinayaa laakiin shiin ayada waxaas uma wajeedo ciddeeda way la yaabanaayeen kadib waxay soo wad fadhiisanayeen miiska cuntada kadib habaa waxay u keenaysaa cuntadii uu nacbanaa muun markuu arko wuxuu qabsanayaa sanka shiin waxay muun ku dhahaysaa maxaa cuntada ma jeclid miya waxay qayl ku bilaabaysaa habaa waxayna ku dhahaysaa maxaa cuntada miisku soo saartay muun wuxuu iska dhigaa inuu jecel yahay cuntadan ayna taa cuntadu adduunka ugu jecel yahay habaa waxay iska soo jaraysaa aniga waxaa cuntadan u kariyay inaadan cunin haddaaba jeceshahay aniga waa inaa kisteeda gurtaa muun wuxuu bilaabaya inuu isku daldalo cuntada si aan looga dareemo inuu been sheegayay kadib wuxuu ugu imaanayaa aabihiis isbitaalka aabihiis isagoo xanaaqsan wuxuu kusoo tuuraya qaandada wuxuuna ku dhahayaa iga tag anisoo kuuma sheegin inuu dhammaada xiriirkeena orod ku laaba meeshaa ka timid muun wuxuu u sheegaya inuusan u imaan inuu wax weydiisto keliya waxaa u imaan inaa kuu sheeg markaa kaa tagay waxaa gala nolol farxad badan aniga iyo jecelkeyga intaa bixin kahor waxaan jeclaystay inaa wax kuu sameeyo wax wanaagsan sidaas darteed ayaan kuuga imaaday waxaa kuu keena hooyadeyda waxaan kuu sheegayaa inaa kala dooratid inaa ku noolaad nolol
farxad badan inta noloshaada ka dhiman ama inay iskaaga jirto noloshan mugdiga ah oo farxad aan lahayn kadib uu ka tagaya waxaan irid soo galaysa hooyadiisa odaga markuu arko wuxuu bilaabaya inuu isboojeeyo laakiin Lily ay u soo ordayso hab ayaan siinaysaa waxayna ku dhahaysaa is-adkeedkan jooji intaan kadib looma baahna madax xanuunkan waxaa loo baahan yahay inaad sidaada hore kusoo laabatid oo aad jecel naxariis aad dareentid muun markuu ku soo tago isbitaalka waxaa soo bacay aabihiisa wuxuuna ku dhahay wiilkeygii waxaa rabaa inaan kugu wareejiyo hantida oo dhan hadda kadib aniga waa duqoobay waxaa loo baahan yahay adiga aad maamushid hantidan oo dhan muun wuxuu ku dhahay aabihiisa inuusan u baahnayn asaga uu noloshiisa eber kasoo bilaabi doono adigoo yacni ay noqonaya milyaneer Lily waxay ku dhahaysaa madax adeega jooji hadda kadib odagan wuu duqoobay shaqadiis waa inaa la wareegtaa aabihiis wuxuu ku dhahay hadda lay aniga jaceylkayga helay waxaa u baahan inaan jabi degan iska galo ee kaale hawshan culeyskeediga qaad muun wuxuu ku adkaysanaya inuusan usoo laaban doonin hoteelka kadib taleefanka ayuu ku daminayaa kadib shiin waxaa soo bacay nin wuxuuna u sheegaa beegdo inuu tusabareeda uuna ka helay waxa uu bedeli doonaa filim kartoon ah ee adiga diyaar ma tahay shiin ayadoo faraxsan waxay ku dhahaysaa diyaar ayaan ahay markay taleefanka dimis waxay bilaabaysaa shiin inay boodboodo farxad darteeda meele isgees ayay weynaysaa 6 bil kadib waxaa arkaynaa shiin eedadeeda oo la gaar waqtigii ay dhal lahayd oo joogta isbitaal kadib waxay dhalaysaa gabar shiin markay aragto walaasheeda yariista ah aad ayay u farxaysaa sanado kadib shiin waxay rumaynaysaa riyadeeda ahayd inay noqoto qof maalqabeen ah muun wuxuu ku soo laabanaya hoteelkiisa halkaas ayuu ku dhammaanayaa taxniin oo socday ha ilaabin inaa muuqaalka like saartid saaxiib nagu cusub haddii aad tahay subscribe soo dhex janalka